بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتحالي كسابسن عدينتا عقائد إسلامكو إنay ku taagan tahay adilla cad oo qofka ibn aadanka ku qancinaysa in caqiidadan ay sax tahay boqolkiiba boqol caqiidada ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu manaystay ee inoo soo dejiyay ee anbiyada loo soo dhiibay عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعقائد عدين يتوس أو يتابسية كوسليسن وعقائد صحن بقولك وبقول كتوسين سنة عقائد يد أنا هينني قلدان تهي وجوهري قف كمسلم كوي حابسين هي إن الله سبحانه وتعالى تشرو أدون كنا أبوري وعقيدة لجا مارمانا وقفك بلا آذن كو أبورا وإلهي سبحانه وتعالى قلبي يسوق لي لكن ذاتك قاركود مركب قاركود استيتيان ذاتك استيتينية محل وقع عنكره maxaa caday loo sheegi karaa laba cadaymood ayaynu sheegaynaa oo cad oo cadceeda ka cad ugu horeyn aboonaanta adduunku wuu abuuran yahay horena umuu jirin waxa laga maarmaana maadaama hore u jirin cid shirsiisay oo adduunka oo soo biirisay oo keentay oo ka soo saartay jiritaan la'aantii oo jiritaanka keentay inay jirto ayuha alikhwa adduunkani inaanu hore u jirin waa la isku waafaqsan yahay dadka qaarkood ba hore u diidi jiray laakiin qolooyinkan dambe xataa kuwa mulxidiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala jiritaankiisa aan rumaysnayn way qirayaan inaanu adduunka hore u jirin Stephen Hawking oo kale wuxuu leeyahay adduunkan waa inuu bilow yeeshaa in badan baa la baadhayay طبعا inaga agteen haddaynu muslimiin waa macluuma daruuriya in adduunku uu bilow leeyahay laakiin isagu wuxuu leeyahay 1970kii ayaa la ogaaday adduunku inuu bilow leeyahay maadaama adduunku bilow leeyahay cidii bilowday waa ayo wax la bilaabay oo hore u jirin waa in cid tirsiisa ay jirto haddii ilmaha yar la taabto isagoo sii jeedo wuxuu oranayaa ay taabtay laga dhaadhicin maayo taabasha kugu timid iyadoo cidna ku taaban imaam abu xaniifa raximahullah ayaa qolooyin diidan ilaahay subxaanahu wa ta'ala la dooday intaan doodii la bilaabay wuxuu ku yiri bal waxa iga warantaan doon wabiga dajla timid soo rakaabsatay alaab isku soo gurtay iyadoo cidi wadin soo noqotay soo xiratay alaabtiis ka rugtay kaasi kuna sheekhu waaside wax la maskaxda galaya maaha rasuul sheekh maskaxda u galaysa adduunka isku qafalan ee kala socda inuu iska yimid oo cidi keenay waxa suura galahay si awgeed ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiri am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun ibn aadan kan ilaahay diidan subxaanahu wa ta'ala ee diidan cibaadadiisii miyay iska samaysmeen siyaga ismeeyay suura gal maaha qaybta saddexaad baa saxo ilaahay baa sameeyay daliilka labaad ee cadeynaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala jiritaankiisa sidoo kale cadeynaysa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaq u leeyahay in la caabudo keligii adduunka aynu joogno isagu abuuray siduu isugu jaango'ay haddaad adduunka soo eegto uu isku jaango'ay ishaadu way ku tusi kartaa madaxaaga kale haddaad eegto dheecanka ka soo baxay dhigta iyo ka isha iyo ka sanka iyagoo madaxii ku wada yaala mid waliba mid munaasib ku ah ayaa ka soo baxaya yaa ku hagaajiyay miiskiga hagaagtay waxaan suura galahay ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala isku hagaajiyay adduunka aynu joogno koonka dhulka aynu ku dul noolahay waxa weeyaan hawa joogta hawada hadii aanay joogi lahayn oo ka go'naan lahayd oo dhulku bila hawa noqon lahaa dabaylaha ka kicila khatara oo soconaya saacadiiba 1600 oo kilomitir soo ma taqaanaan adduunka maanta dabaylaha iyo duufaanada dadka halaaga 800 oo kilomitir bay saacadii jaraan adduunku uu isku jaango'an yahay qoleenka xataa mulxidiintu way ka yaabeen Stephen Hawking wuxuu leeyahay waxa muuqata adduunkan iyo qawaaniinta ku socda inay tahay cid yaani ilaahay mar rumaysana tabaaraka wa ta'ala cid waxa samaysay taqaana qorshe wanaagsan dejin karta oo si la yaab leh adduunka u samaysay ninkii oran jireen Anthony Fallon oo Ingiriisa mulxid buu ahaan jiray markuu adduunka cajaa'ibtiisa ka yaabay si isugu jaango'ay wuxuu aaminay ilaah sameeyay inuu jiro walaalayaal taas waxay keenaysaa inaynu ku qanacno diinta islaamka ogaanana inaynu hayno cadaymo cad oo cadaynaya diinta inay xaq tahay insha Allah sida ay kulan dambe wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh